السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyo warama gaysitiin caafimaadkiina I hope ina caafimaad qabtaan fila isku soo noqod wanaagsan YouTube channelka daawanaysin waxa way beauty within anigana waa Faatush hadaa naga cusub tahay fadlan subscribe saar hadaa hore noola joogteen thank you so much halkan waxaan ku haysanaa alaabta jirka oo isticmaalno waxa ugu horeeya arkaysan waxa scrub oo cucumber ah qajaar halkan waxa ku jira coffee salt koofiga jirka oo isticmaalno cusbada ah halka waxaan ku haystaa nafaqo oo mayonnaise ah alaabada jirka loo isticmaalayo caadiga garanaysan waa guys halkan waxaa noo taala shaambo kaasna waa scrub oo wajiga u isticmaalo scrubka aad u fiican yahay maasha Allah kan waa black mask qof walba waa garanaya halkaasna waxaa nooga jiro qasil waayo qasilka caadiga greenka ah xulbad iyo huruudna halkaas ku haysanaa waxa kale oo haysta meesha noo yaalo waxa waa Cetaphil ka wajiga loo isticmaalo moisturizer waaye dadka wajiga qaleelka ka dareema isticmaalo kana waxa la dhahaa Acne wuxuu u roon yahay camburiyaha dadka qabo pimpleska madmadow haday kuga hareen waxa soo dhan ka caawin doona insha Allah brightening wuu qabaa glowing ku siina waxaas kale Graslina haysanaa idana oo jirka u isticmaalo alaabto dhameystiran waatana inkastoo waxyaalo kale oo isticmaalo ay jiraan laakiin hadda inta mainka oo maanta isticmaalay idin siinayo waa intaan insha Allah daawasho wacan insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iido doontiin hadal idin kuma daalin kari waxa idin tusaaya noo qasay insha Allah laakiin gacanta idin ku siini doona halkaana waxa ka ilaaway at the moment hadaan la joogo waxa isticmaalo face wash ka isticmaalo waa kana qajaar waa sakana waatana halkaana soo dhigtay qasilkii huruudi iyo xulbadi iyo weelka siriska ku qasanayna insha Allah kale wax badan ma qasi dooni waxa halka waqtiga isticmaalay bisa qasaya halkaas waxa ku shubtay halka jiko huruuda kulli halka jiko ka isticmaal insha Allah halkaasna waxa ku daraya hal jiko qasilka ah iyo half oo waxa la dhahayo xulbada aan ku dari doono insha Allah then waa isku qasi doona waa arkaysin say ku soo baxda then gacanta idinku tusiina insha Allah wax weyn ma baahanba jirka dhan oo isticmaali kartaa wajiga kaliya oo samaysan kartaa hadba saarabtid hadaa rabtid biyaha ku qasanaysa hadaa rabtid waxa ku qasanaysa caano malaba ku darsanaysa laakiin hadda la joogo anaga saa u qasanayo waxa way biyaas la ku qasanayo wax kale kuma daraa insha Allah then hadba qof basoo rabo hadaa rabtid malaba ku darsanaysa ayadoo saan ah malabka ku qasaysa waxaana ku daraysa caanana kula qasanay laakiin ani hadda waxa isticmaalayo biyo insha Allah waa soo qasaya ayadana isku soo dardari doona kadib say ku soo baxda arkaysiin haddana waatan aanoo isku qasqasayo waatana rajayna inaad ka faa'iido doontiin fadlan haday tahay marka kugu horeysay subscribe inoo saar comments ka nooga reeb fikradahaada waxa rabtid in channelka lagu soo daro oo videoyada rabtid inaad ka aragtid thank you so much guys oo mahadsantihiin si fiican isku qas insha Allah si fiican isku soo dhaxgasho kadib marso insha Allah haddana waa kana si fiican isku soo dhaxgaliyay waa marsanayna kadibna say noqotana la arka inkastoo wax hal mar markaa marsatid san hore results-keeda ka helaynin dadaal laga rabo mar walba inaad isticmaasho isbuucii 3 mar camal waayo waxaan la joogteynin faa'iidadeeda lama helo isku day quruxna waa gacan ku hayn insha Allah isku dayna mar waliba quruxdaada gacanta ku haysid haday timo tahay haday wax kala tahay wuxuu dhan insha Allah isku day dadaalkeeda qabo results-ka miraheeda waa goosan doontaa insha Allah haddana waa kana marsanayna gacanta la idinku tusinaya waxay kadib xogo yaraan ku joogaya because hadda fully ma idin sameynaya wax idin tusinaya waa behind hadhow dambaana samaysan doono because wixii waa badsaday laakiin waxa bar like 20 minutes ku joog 20 to 30 minutes ku joog kadib baaf ka gal soo qabays iska soo dhaq insha Allah wajigana waa marsan kartaa jirkana waa marsan kartaa saarabtida oo samaysan kartaa insha Allah meesha rabtida marsanay guys warayana idinku daalin intaan wax ka dambeeyo la daawado khayr idin dhaafay fadlan subscribe waxa ka haddana subscribe wixii noo saara
haddana waa kaas gacanta waa aragtiin obviously waa saa idin sheega hal mar ma wada cadaanaysa laakiin at least xoogaho waa ku yara waa ku nuurinaysaa yeah waa kaas gacmihiina sidaas kusoo baxeen anoona wax badan ku joogin only 2 minutes ku joogay waaye haddana scrubka idin tusina gabar walba way taqaanaa scrub si loo marsaday wixii si loo marsado just like waxa idinku tusinayaa wax walba haddaa marsatid as in like wixii faa'iido ku keenaa haddaa marsatid xoogaha ku joogtida joogtaysid inaa resultskeeda miro fiican ka guran doontid that is all I'm trying to say yeah guys yaana warka idinku daalin insha allah isla socono videoga waxaa rajeynaya inuu idin anfaca idinkana anigana subscribe-ta ii saari doontiin like comment-ka fikradiina hoos nooga reebi doontiin insha allah baaladaas kulli waa soo isticmaali doonaa guys but kulli ma idin wadan tusiin kari laakiin wixii like idin anfacayo anigana ii anfacay inaa idin tusiyo magacooda ka aragtaan lacala haddaa awoodaan inaa soo qaadataan oo isticmaashaan saa u isticmaashaan idin tusiinaya baalkaas arkaysaan oo kii lagu qabaysanaya almost way iga dhamaanaysaa wax yariisa ku jiro yeah guys kolley marka isticmaashidna gabdhaha inta isticmaashaa garanay korkaaga smooth intuu kuu noqdo adee dhanaa isjeclaanaysidba madaxana obviously tinta ma idin tusiin kari laakiin labadaas hadda main ii ah markaan dhaqo shaambada ku dhaqo kadib nafaqada amarsanayo insha allah nafaqadana biyo caadi oo qabo baan kaga raacin doonaa baashaas aragti Cetaphil waaye labadaas wajigayga mainka habeenka nightka markaa seexanayo aan marsadaa moisturizerka first marsanaa kadib haddana saliidaas waxaa serum caadi waaye acne C10 la dhahaa inkastoo ani dhakhtar iisoo qoray laakiin maasha allah aad bay u fiican tahay taasaa first marsanaa Cetaphilka marsanaya then waxaa ku darayaa saliida wajiga marsanaya serumta xoogahoo lasoo jeeda obviously markaa wax marsatid hore maka sii saaxan kartid wixii dhanka u saaxatay dhawanka way kaa tirtirmaysaa marka insha allah saas waa saani u samaysto waxaan rajeynaa inaa idin anfacday oo ka faa'iidayn khayra idin dhaafay insha allah intaan videoga ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu